nabaday daawadayaal meel kastaad joogtaanba barnaamijkeennu waxa uu maanta daaran yahay xayawaanka bini'aadan kasta cabsi geliya marka ay sheekooyinkiisa maqlaan ama muuqiisaba daalacdaan ee loogu yeedho libaaxa. libaaxu waa xayawaanka ugu halista badan xayawaanada duurjoogta ah. waxa uu leeyahay muuqaal aad u cabsi gelinaya qof kasta oo bini'aadan ah. intaasina waxa u dheer shaash uu qof kasta ka jidhidhacoonayo ama madaxa saani ka foqayso ama xaadu istaagayso judhu arkaba libaaxa. waxaa suuragala in dad badani macal cararka awoodi waayaan haddii ay si foolka fool ah isaga soo horbaxaan libaaxa, waayo waxa uu leeyahay aragti judhaba ku cabsi gelinaysa. waxaan sheekooyin badan ku haya oo aan ka soo gaadhay oo ay dad waayeel ahayna ii sheegeen in waayadii hore xaydha libaaxa lagu qasaalan jiray dharka, oo uu libaaxu leeyahay xadh sida saabunta ugu baxaysa biyaha oo ay ku habboon tahay in dharka lagu qasaasho. waxaa kale oo jira sheekooyin fara badan oo uu libaaxu ku leeyahay geyiga Soomaalida, waayo waxaa la soo maray waqti ay dadku yaraayeen, xayawaanada duurka ku noolina ay aad u badnaayeen, waxayna dhib badan ku hayeen bulshada xoolo dhaqatada ah ee duurkaasi kula nool. mar waxay ka soo weerari jireen xoolahooda, marna naftoodayba damaacii jireen. haddaba libaaxu waa boqorka xayawaanka duurjoogta. labkiisa waxa loogu yeedhaa aar, dhedigiisana waxa loo yaqaanaa gool, halka ubadkiisu marka uu yaryar yahay ee dhashana loogu yeedho cagabaruur. dabeecadaha uu kaga duwan yahay libaaxu xayawaanada kale waa ay fara badan yihiin. dabeecadahaasna waxaa ka mid ah haddii ay noqoto dhanka ugaadhsiga, waxaa ku shaqa leh dhediga ama goosha, isagana fadhiga ayaa wax loogu keenaa. balse waxaa cajiib ah waxa aarka loogu yeedhaa oo keliya wixii goosha u taagi weydo ama ka ital roonaada oo keliya. dabeecadda labaad ee uu leeyahay waxa weeye libaaxu kuma cuno ciidda waxa uu raqda saartaa geed yar si aanay ciidda uga gaadhin. waxaa kaloo markaan dad waayeel ahi weydiiyey dabeecaddaasi ii sheegeen inuu ka hanweyn yahay libaaxu inuu ciidda raqda dhigto. haddaba daawada ma jeceshahay sheekooyinka libaaxa ama kuwa xayawaanada kaleba? haddii aad xiisayso waxaannu soo tabin doonaa sheekooyin ku saabsan libaaxa ama xayawaanada kaleba. sidoo kale waxaa jira hal xayawaan oo yar oo libaaxu ka baqo. haddii aad taqaano xayawaankaasi kommentiga noogu reeb, annana barnaamijka dambe ayaan jawaabta saxdaa idinku sheegi doonaa. daawade ha ilaawin subscribe, like and share.